والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan jecelahay kelmadero kooban halkan inaan ummadda reer Somaliland gudaha dibad meel kasta joogaan baa halkan aan u mariyo. Waxa jiray bariyahan dambe oo dhan in xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha xisbigaasiba ay habaar la daba taagnaayeen xisbiga wadani. khilaaf baa ka jira, waxba is haysta, gudoomiyaha iyo afeenka is haysta, xogaya warfaafinta booba iyo afayeenku buubaya is haysta. 500 oo shalay ugu dambeysay waxa ku qoraayeen sahan iyo Caynaba News. waxaan u sheegnaa horta propagandada daciifka ah ee wax allaale wax ka jira habeeratay aan jirin. ma noqon doona anagu dad ay saameyn ku yeelato marka hore xisbi ahaan, isla markaana waqti badan iskaga lumin mayno arrimaha beenintooda iyo ka hadalkooda. waxa jira laga hadlayo waxaan jirin in laga hadlo lagu celceliyo in badan oo laga jawaaba uma baahna. iyana waa si jeceliin inaan hadii jeer ala jawaab siino oo isku daba wareegno in xijiyaan. waxaan u sheegnaa inaan ka kornay xisbiga waddanna uu ka ballaaran yahay kana laab furan yahay inta ay kula meeraysanayaan. waa garan kartaa baan mulanayaa marka sahan iyo Caynaba News la sheego ujeedooyinka iyo waxyaabaha ka dambeeya. waxaan oran lahaa oo la idinka fiican yahay inaa waxaan jirin had iyo jeer ale la doonataan madaxda xisbiga wadani. madaxda xisbiga wadani wax khilaaf ah habeeraatay dhex yaala habeeraatay ma jirto. shirweynahoodana wax khilaaf ah la qaban doono insha Allah sanadka soo socda oo ka taagan ama dhex yimid iyaduna ma jirto. waa xisbi midaysan, waa xisbi dhidibba adag ku taagan, waa xisbi xeer iyo nidaam uu ku kala baxo leh, waa xisbi aan habeeraatay looga baqanaynin marnaba in maxaan ku raadayay waxyaabihii soo maray kulmiye iyo shirweynihiisii hadheeyey uu ka dhex dhalan karo xisbiga wadani. waxaan leenahay markaa wax kale ku mashquula intaa ku mashquulsan tihiin wadani baa is haysta iyo wadani baa dhexdiisa khilaaf ka taagay. waxaa kaloo intaa ku darayaa dee kulley marka tartan jiro asxaabta siyaasaddu tartamayso tartanku waa furan oo si xor ah oo dee dastuuri oo nidaam sharci leh ay loo tartamaa. laakiin sidan ay u wadaan imika qoladina kulmiye ama aan oran karno kulmiye badan ma aha, waa haraaga kulmiye aan oran karno. haraaga kulmiye ma aha sidii dee tartanka xorta ah ee dastuurkeena iyo xeerarkeena qorayeen ay u dhaqmi lahaydeen dariiqeedii ma haysan malan. waxaan ku soo noqday saaxadda annagana xisbi ahaan bulshada reer Somaliland waa noo mid gobol gaara oo noo suntalna ma jiro, bulsho gooni ah ama qayb gaar oo bulshada ka tirsan noo suntalna ma jirto. waxa weeyaan reer Somaliland waxaan aaminsanahay more than 75% inay xisbiga wadani taageeraan gobol kasta iyo meel kasta joogaan, xataa marka lagu daro qurba joogta dadku nool oo ka muuqato qof kasta oo qurbaha soo maraa uu arko in xisbiga wadani uu ka yahay xisbiga ugu horeeya gobolada dalka. markaan eegno iyo bulshada reer Somaliland waxa arintaas muujinaysaa in rajada kaliya ay bulshadani qabto inay ka saari karto dalka carqaladaha kulmiye uu dhex dhigay ama uu beeray inuu yahay xisbiga wadani. qabyaalada xisbiga kulmiye beeray cidda kaliya tirtiri kartay baabin kartaa waxay bulshadu aaminsan tahay inuu yahay xisbiga wadani. rajada kaliya tay ummadani qabtaa marka ay tahay xisbiga wadani dacaayadaha yar caynkaas ah iyo tartanka qaylo sharciga ah ee ku salaysan waxyaabaha dadku waaweyn aqliga leh ka xishoonayaan ee ficilada ah ay ku kacayaan kulmiye ama haraaga kulmiye. waxa la ka waantooba miidaan waasa si xor ah oo xalaal ah nolol tartamo baan leenahay. idinkuna hadda is ogtihiin awoodiina inay daciiftay oo haraa imika tihiin dee caadi soo dhiiba oo la isdhiibi karaa. waa qofka haddii ciyaarta arkay laga badanayo waa xor inuu yiraahdo waa isdhiibe inuu rafto, laakiin waa laga fiicay. aad ba mahadsantahay.